بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أهل خير كأه بركة بضن إلهي سبحانه وتعالى إذن حفظيه ملك استأجوبتان حنون كان صعده iyo shartiisa ilaahay ha idinka leexiyo caalamka oo dhan ilaah ka xifdiyo adduunka oo dhan aan u ducaynaynaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. inta xanuunsan ama xanuunkan la xanuunsan ama nooc kastoo xanuuna la xanuunsan waxaan leenahay adhab ilba'sa raba annaasi ishfihim anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uk shifaa'an laa yugaadiru saqama. ilaahu xanuunka ka qaad caafimaad buuxa oo caajil ah ilaahu ugu bedel. intaas kadib waxaan bilaabaynaa tafsiirka suuratu yuusuf oo ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanayna inuuna fahamsiiyo iyadoo af soomaali ah, inuu ilaahayna fahamsiiyo axkaamta faraha badan ee suuraddaasi ku qarsoon iyo asraarta iyo xikam fara badan oo suuraddaasi ka buuxdo oo ilaahay subxaana wa tacaala xikamtaasi oo ilaahay uu ku qariyay qur-aanka kariimka ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhamaystiray insaan wuxuu u baahnaa oo dhan. alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina. ilaahay subxaana wa tacaala diinta islaamka wuu dhamaystiray. masdarka asaasiga ah ee wax laga qaato waa kitaabka qur-aanka. masdarka labaadna oo kitaabka sharxaya waa sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam. suuraddan suuratu yuusuf caawa hordhac ayaan sameynayaa wixii aan ka gaari karo waqtiga kooban aan haysto oo aayada ah ayaan akhrin doonaa, laakiin suuraddan tacriifinaynaa marka hore. suuraddan magaceed waxaa la yihahda suuratu yuusuf. waxaa ijmaac ah suuraddan inay tahay suura maki ah. nabiga calai slat slaam oo maka jooga ayay soo degtay. way jiraan culummada qaar oo laga soo wariyey in cabdullaahi ibni cabaas uu yiri suuradda waa maki ilaa marka laga soo reebo saddexda aayadood oo ugu horeyso aayadda koowaad ilaa aayadda saddexaad oo ah naxnu naqusu calayka axsana alqasas. saddexdaas aayadood marka laga soo reebo inta kaleo dhan waa maki, laakiin waxaa ijmaaca suuradda inay suurad maki tahay. suuraddan magac keliyay leedahay. suuradaha qaarkood magacyo hal magac wax ka badan ayay leeyihiin. suuradaha qaarkood 8 magac, qaarkood 10 magac. suuraddan waxaa la yiri waa suuradda ama waa suuradaha hal magac kaliya leh, magacaasna waa yuusuf, maadaama suuradda ay aada xoogga u saartay qisatu yuusuf calayhi salaam. yuusuf waa nebi, waana arki doonaa. isla markaasna culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa rasuul. isla aayadaha haddaan caawa gaarno aayad ka mid a tilmaami doonta oo culummada qaarkood ay ka qaateen meesha ilaahay uu dhahay wakadalika yajtabiika. ilaahay subxaana wa tacaala sidoo kale uu ku doortay istafaaka. halkaas ayaa waxaa laga faa'iidaystay in nebi keliya uusan ahayn uu rasuul u yahay calayhi salaam. nebi iyo rasuulna iyadoo kooban waxay ku kala duwan yihiin. nebi waa loo soo waxyoodaa, laakiin lama amrin risaalada in uu faafiyo oo meel uu gaarsiiyo oo qoom loo soo diro oo uu shaqo ka qabto. marka rasuul waxa waaye waxaa loo soo diray risaalo inuu xambaaro, uu meel gaarsiiyo, dad uu gaarsiiyo arrin ama dhib markaas taagan wax ka qabto, sida nebi shucayb oo kale arrinta miisaanka. sida nebi muuse oo kale waagaasi sixirka ayaa jiray, dadka waxaa la tusinayay qudrada ilaahay subxaana wa tacaala
ay sixri ka cabsan jireen marka ilaahay inay ka cabsadaan qudrada ilaahay. marka rasuul u ahaa isagana sidoo kale. marka rasuul waxa waaye shaqo wuxuu qabanayaa oo ah dadka inuu gaarsiiyo risaalad loo soo dhiibay. nebi dadka inuu gaarsiiyo risaalad lama amrin, laakiin isaga waa lala hadlay, ilaah ayaa u waxyooday. ilaahay subxaanahu watacaala wixii faahfaahina gadaalan ka sheegi doonaa, saasay ku kala duwan yihiin. marka nebi yuusuf rasuulna wuu ahaa. waxaa kaloo jirto oo suuradda horodhaceeda in la xuso mudan, suuraddan waa suuradda keliya ilaahay subxaanahu watacaala hal qiso bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ilaahay uu kusoo koobay. meesha qur-aanka markaad fiirisaan qisatu yuusuf qisatu muusa, qisatu maaragtay ambiyada kale qisooyinkooda aad arkaysid iyadoo talantaali ah oo meelo ku kala firirsan. marka halkaas waa halka culammada ay dhaheen marka ilaahay subxaanahu watacaala oo uu ku dhahayo nabiga calayhi salatu wasalaam naxnu naqusu calayka axsana alqasas, waxaan kaaga sheekeynaynaa sheekooyinka ugu fiican sheekooyinka. halkan waxaa loola jeedaa sheeko dhammaystiran. culammada qaarkood waxay ku dareen oo qaabka bandhiga sheekada waa qaab cajiib badan oo bini aadam uu kari karin, sida quruxda badan oo ilaahay uu soo bandhigay. sheekooyinka marka dadka loogu sheekeynayo, hal sheeko waxaa laga yaabaa 10 qof markay ka sheekeyso inay kala dhadhan badan tahay, kala qurux badan tahay. qof ayaa laga yaabaa markuu sheekada uu kuu sheekeynayo mar xaalad cabsi ku dhex gelinayaa, xaaladaas cabsida inuu kaa soo saaro haddana wuxuu ku dhex gelinayaa xaalad farax ah, haddana uu ku leexleexinayaa sida steerinka gaariga qofka haya oo kale. adiga steerinkaagu hayaa marba meeluu kuu kaxkaxeynayaa. qofka noocaas oo kale markuu qisada uu kaaga sheekeynayo waa ka duwan tahay qof qisada uu kaaga sheekeynayo qaab oo passive ah, macnaha oo qaab oo hal nooc ah, iyadoo qisada laga yaabo in maaragtay maraaxil kala duwan iyo waqtiyo kala duwan iyo ahdaaf kala duwan ay ka buuxdo. suuraddan suuratu yuusuf duruus fara badan ayaa ku qarsoon, ilaahna waafajiyo. that's why dadka qaarkood ama ardada qaarkood waxay wala taliyeen suuraddan tafsiirkeeda inaan muraajaceyno. marka aayadan u dul istaagaynaa, aayad kasta maxaan kala soo baxaynaa, aan ka faa'iidaysanaynaa, aan dul istaagaynaa hadduu ilaah yiraahdo. dadka ma jecla waqtiga lagu dheereeyo, marka waxaan ku dadaalaynaa hadduu ilaah yiraahdo tafsiirka nus saac inuusan nala dhaafin ilaahay idankiisa. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan uu ku bilowday acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra. waa 3 xuruuf waay, alif iyo laam iyo ra. culammadu waxay kusoo koobaan meelo badan. alif laam miim ayaa ka mid ah. waxaad qur-aanku arki doontaa waxaa la yidhaha xuruuf oo muqataca ah, xuruuf oo ilaa hadda oo weli waxayna ka mid tahay icjaazu lqur'aan. ilaa hadda ruux sheegi karo micnaheeda ma jiro. sheekh kasta wuxuu ku istaagaa allahu aclamu bimuraadi, ilaah baa garanayo wuxuu ula dan leeyahay xuruuftan, laakiin qof micnayn kara ma laha. nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu kaga tegey, annagana waddadaasaan raacaynaa. marka waa icjaazi qur'aani ah. af carabi haddaad taqaano adoo lagu dhahay waa car sheeg xuruuftaasi micnaheeda sheeg. alif laam miim aad arkaysaa, nuun aad arkaysaa, saad ayaad arkaysaa, kaaf haafiya waxaa arkaysaa aamin saad qaaf. xuruufahaasaas u kala go-go-an ilaahay subxaanahu watacaala ayaa garanayo macaanida ku qarsoon ee sirta ah. luqadda carabiga dadka yaqaanana waxaa lagu sameeyey taxaddi wax la yiraahdo oo ah icjaaz qur'aani qayb ka mid ah, macnaha cajisgelin la cajisgelinayo carsheeg haddii luqadda ay ku dhammaystiran tahay macaanideeda iyo fahamkeeda iyo asraarteeda wax sheegi karana ma laha. suuraddan ilaahay subxaana wa taala wuxuu ku bilaabay alif laam ra, macnaheeda ilaaha yaqaano 3 xuruuf. tilka aayaatu lkitaab. marka halkan marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga sheekeynayaa intaan soo socoto qur-aanka iyo ahmiyadiisa.
إلهي وحليه تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين. كواسي وآياتها قرآنك وكتابك إلهي سبحانه وتعالى، وكتاب كان قرآنك المبين واضحة وإلهي ونوصو دري ومدى أما إنسانك إلهي وكو أدون صنايو آيات كاسي إن لفهمه إن لغو رقمه إن لفافيه أهدافته لو قد لي أن لفهمه. قرآنك وكلام الله حرف كستو وهذا أن أقرنينه مركاد أقرسه أجر آيات كهليسا، مركاد دقيسته أجر آيات كهليسا. رسولك وحير عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم حرف معها، ألف حرف ولام حرف ولام حرف ولام حرف وميم حرف. ألف كوا حرف، لام كوا حرف، مركا ميد وبطوان مركا قلفتو ألف لام ميم وصدن. صدن كاسي هدال لابن لابتو، أما هداد قلفتو إخلاص كاي انتو لإقهاي أو تراء أو حسنات ويبورانيسا. وأنا قرآن كاليوه وح قرآن كسوهر ودن دوبات أجر وهليسا، لكن قرآن كحرف حرف أي أجر لغوسين أيا مركا حروفاس قيمة لهذا. عندنا قرآن كحكي بها آياضو مركا إلهي وحليه تلك آياضها هاسي أما تلك كواس آيات الكتاب المبين، وكتاب كآياته هيسا آياضها سو واضحة، كتاب كاسو واضحة clear في إنجليش في صومالية wax mugdi aan ku jirin oo cad. culimada qaarkood waxay halkan ku fasireen wadadiis haddii la raaco kitaabka qofka wuxuu u hanuuninayaa xagga khayrka ah, xagga wanaaga ah, xagga cadaaladda, xagga samafalidda, xagga nooc kasto wax walba khayra ilaahay u jeceliya. marka kitaab axkaamtiisa ay cadcadahay saasa loola jeedaa. تلك تاسي أما كواسي وآيات آيات كي آيات الكتاب، كتاب قرآن كآياته المبين عد عد وحمود أن كجرين. لذلك وحالي هذا وضمضة هرماري مركي قانون للربو إلا فوليو وحير هذا قلوب قوانين تسمين يسا قانون كوا إنه أعد هذا قفك سوسن أهلين مال دلدلاء أو به كراني ما فهمين. مرك إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس حكالي وح عد أو معنيه سلا فهمي أو مودع كجري حلاشي سواء عدهاي حرام توحولهاي وعدهاي إلهي سبحانه وتعالى وحل هو عدي. أيضا لبعض إنا أنزلناه مرك إلهي ولي كتاب كيوكها الله إنا أنه أنزلنا وسودجنه كتاب كاسي سواء قرآن وعربيا لقد في عربي كقرن لعلكم وحد مذنتهين تعقلون إناد قرطان. هل كان مركا شن فإذا كجرتو كو فإذا كوات إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإنه كان وعدك رئيسا قرن، نبي محمد مقرن، بني آدم ما شاقن كرو كو مصدر كقرآنك إنه يها الله سبحانه وتعالى. لبا قرآنك إنه يها كلام الله إلهي سبحانه وتعالى وحلانا سودجي وقرآن لأخرنا وكلامك إلهي سبحانه وتعالى. صدح على فإذا سنة يا لقد عربية إنه كقرية. هل كان مركب حلو فهما يا لقد عربية إن لقد دورتي لقدها كره حال لوgu doortay culimadu waxay dhahaan waa luqada ugu qanisan oo laga helayo eray kasta oo insaanku wax ku fahmi lahaa. soo insaanku u helin haba yaraatee wax cudur daar ah oo uu dhahay quraanka baan fahmin. haddana afrax laga faa'iideysanaya la'allakum ta'qilun laga faa'iideeyo waxaad mudantiin inaad fahamtaan dadka lagu soo dejiyay afar waa carab luqadooda lagu soo dejiyay ma dhihi karaan waxana loo dhiibay anaga ma fahmin. haddii aad tahay messenger ama rasuul ama adeege aan ku dhaho hawshan ka shaqee
oo aadan fahamsanayn kama shaqayn kartid. marka inaad fahamto waay. marka luqadda ay fahmayaan oo fasiix ah, alluqa carabiya alfusxa ah, ayaa loogu soo dejiyey si u fahmaan. lacalakum tacqiluun waxa waaye si aad u fahamtaan. 5 waxaa laga faa'iidaysanayaa kitaabkan inuu u baahan yahay caqli in la isticmaalo. halkaas waa marka halka insaanka laga siiyey door inuu ku lahaado maaraynta nolosha adduunka, isagoo kitaabka qur-aanka ku dhaqmayo. ijtihaad, caqliga inaad isticmaashaan. ilaahay caqliguna siiyey sooma. caqliga marka waxaa la rabaa in la isticmaalo, in la fekeraa la rabaa. qofka insaanka inuu fekeraa la rabaa. maxaa dan u ah, maxaan dan u ahayn, maxaa dhib ah, dhibka noocyadiisa kala duwan, dhibka weyn, dhibka yar, masaalix maxaa ah, masaalix maxaan ahayn. maskaxda inay shaqaysaa la rabaa. marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay halkan caqli in la isticmaalo, oo caqliga doorkiis uu ciyaaro, oo caqliga aan la habaabin, oo lagu toosiyey kitaabka qur-aanka. marka waxaa la isku xirayaa aayaddii hore oo ah caqliga keligiis inuu socon. hadda gaalada waxaad dhihi kartaa gaalada maxaa ku caqli badan, intaasoo electronic machines ay soo saareen, laakiin haddana waxaa arkaysaa gaalo ayaad leedahay way habaabeen. maxaa dhacay? caqligooda maysan sal ama bays uma ahan kitaabka qur-aanka. kitaabka qur-aanka uma ahan. idan nin waxaa jira oo dhakhtar oo weyn ahaa maraykanka, aada loogu yaqaanay, oo gabadhiisa xanuun khatar ah ku dhacay. xanuunkaas ninkaas marka wuxuu ahaa atheist. marka hore atheist waxaa la dhahaa qof ilaah dhan ma jiro dhahayo, oo ilaah dhan aan aaminsanayn. muddo isagoo dhaqankaasi iyo fahamkaasi iyo fikirkaasi uu aaminsan yahay, ayaa xanuun khatar ah oo ilmaha ku dhacaan ayaa gabadhiisa ku dhacday. isbitaalkuu la soo orday, dhakhtaru ahaa, xanuunku uu garanayay. gabadhi waxaa loola orday qolka qaliinka. xanuunkaasi marka qofka laga helo waa 50-50. macnaha 50 waxa waaye waa suurtagal inuu noolaado, waa suurtagal inuu dhinto. qofkaas haddii lagu sameeyo qaliin waxaa laga yaabaa inuu dhinto. ninkan gabadhan aada u jeclaa, gabadhiisa yar. marka dhakhaatiir kale ayaa hawshan ku jirtay. isaga dhakhtarka maan isbitaalkaasi waxaa laga codsaday inuu isbitaalku ka baxo intuu waqtiga socda qaliinkan inuu sugo. wuu ka baxay isagoo ilmeynayo. wuxuu aaday qol oo meditation room la yidhaahdo. waa qolka qofka keligiisa markuu galo, oo waxaa loogu talagalay qof walba diintiisa inuu ilaahay ku caabudo. isaga diin ma haysto, marka muxuu samayn doonaa? qolkii uu soo galay. markuu soo galay kor uu fiiriyey, awood inuu jirto u ogaaday. wuxuu yidhi ilaahu adaan kula hadlayaa. aniga waxaan aaminsanahay inaadan jirin, laakiin haddaad jirto oo run tahay, oo awoodaadu ay tahay sida muslimiinta ay sheegaan ina allaha calaa kulli shayin qadiir, wax walbo inaad karto. inta hadda aan kula hadlayo gabadhaasi cid daweyn karta malaha. dawada xanuunka ku dhacay dawadeed waxaya malaha. dhakhtaraan ahay, waa aqaanaa cilmigayga. haddaan dhakhaatiirta kale aan la kaashado, waxaan wada ognahay ilaa hadda xanuunkaasi ciddii ku dhacdo haddii lagu sameeyo operation ama qaliin, waa suurtagal inuu qofkaas badbaado, waa suurtagal inuu dhinto. ilaah jira haddaa tahay, awoodna aad u leedahay qofka naftiisa inaad badbaadiso. gabadhaasi xanuunka ka badbaadi. ano waxaan kuu ballan qaadaa inaan ku rumeeyo ilaah dhab inaad tahay. muslimiinta waxay sheegayaan oo ah keligaa inaad ilaah tahay, wax walbana aad karto. diintana waa soo gelayaa, waana ku rumaynayaa. isagoo intaas dhahayo ayaa albaabka lagu soo garaacay. wuu soo cararay. kaaliyaa la yidhi qolkii operationka. wuu naxsanaa. wuxuu u maleeyay in la yidhi gabadhi waa dhimanaysaa. markii qolkii uu soo waqtigii weli ma dhammaanin oo loogu talagalay in la sameeyo operationka, dhakhaatiirka waxay dhaheen kaali hore usoo gal. wuu soo galay, ilin dhakhtarna wuu ahaa. waxay dhaheen hawsha anagoo rabna inaan bilowno
waa markii uu orday meeshii ilaahu la hadlayay isla markii waxaan aragnay muuqaalkeeda oo dhan oo isbedbedelayo macnaha sababtoo markii hore haraggeeda kalar gooniyu lahaa oo xanuunka la xiriiro haraggeedaas wuxuu kusoo noqday harag caadi ah waa yaabnay wuu isbedelayaa mashiinaa ku xirnaa mashiinka wuxuu tusinayay graphic ah isbedelo jirkeeda inuu sameynayo ugu dambeyntii 10 daqiiqo intii 10 daqiiqo uu hadlayay waa ugu dambeyntii waxaa dhacday uu dhahay jirkoo dhan wuxuu noqday normal mashiinku wuxuu tusiyey xubnahii oo dhan caadi inay u shaqeynayaan dhiig mareenka dhiigga caadi inuu u shaqeynayo wadnaha caadi inuu u shaqeynayo mashiinku wuxuu tusiyey qofkan human being caadi inuu yahay isla markii waxaan go'aan ku gaarnay in aan ultrasound iyo jirkii oo dhan inaan masawiro ka qaadno masawirada wuxuu soo saaray jirkayga dhan inuu nadiif yahay xanuunkii aan aragnay gudaha ku jiray wixii oo dhan wada nadiif we don't know what happened meesha wuxuu ku dhahay ashhadu an laa ilaaha illa allah I know what happened to you waxa ku dhahay ilaahi aan inkarsanaa aan waxaan soo ogaaday inuu jiro waxaan ku ogaaday gabadheeda xanuunka uu ka qaaday marka meeshaasi ninkaas caqligu isticmaalay ilaahay subxaanahu wa tacaala saas uu leeyahay marka lacallakum tacqiluun inaad fahamtaan qur'aankan oo ilaahay wuxuu rabaa qur'aanka inaan fahamno markaan fahamno dadka af carabiga yaqaan waxaa la rabaa inay markaasi tarjumaan oo caalamka waa kitaabka loogu tarjumid badan yahay waa kitaabka qur'aanka horta halkaasi iyadana aayadaasi intaas fawaa'id ayay leedahay aayadda kale ilaahay wuxuu leeyahay naxnu naqussu calayka aayaddaana ku istaagi doonaa naxnu naqussu calayka rasuulka alla hadla waxaa leeyahay waxaan kaaga sheekeynaynaa naxnu ilaahay markuu isticmaalay iyo aayaddii hore ahayd innaa anzalnaahu culummada waxay dhaheen kelmadda waa kelmad jaamaca tusinaysa laakiin kelmad qudra ayay tusinaysa awood ilaahay oo alla keli ah laakiin jaamac ma tusinaysa oo tira ah haddana naxnu waa sidoo kale waa kelmadda lafdiga jaamac u tusinaa waa min xayثu alqudra awood ahaan waa ilaahay subxana wataala haddaba qofka marka awood isbadaa wuxuu leeyahay annaga asoo keligiisa ah ilahay wuxuu leeyahay marka naxnu naqussu calayka annaga waa kuu sheekeynaynaa naxnu annaga ilaahay subxaana watacaala rasuulka la hadlaya naqussu waa kuu sheekeynaynaa calayka adiga oo rasuulka calayhi salatu wasalaam nabi maxamedo sheeko noocee ah axsana alqasas sheekooyinka sheekada ugu wanaagsan markaas ilaahay wuxuu leeyahay bimaa awxaynaa ilayka taasoo adiga aan kuu soo waxyoonay halkaas marka waxaan ka qaadan doonaa hadhow markaan aan casharada laga qaadanay aan sheegayna aan xusaynaa rasuulka calayhi wasalaam in loo waxyooday oo rasuul ilaahay uu yahay intaas kaliya ma ahan maxaa loo waxyooda la sheegay hada alqur'aan qur'aanka aan kuu soo waxyoonay marka qur'aanka oo dhan waa waxyu ilaahi ah waa ilaahay qowlkiisa waa haddana kelmadda alqur'aan wax la akhrinayo waa oo u baahan in la akhriyo in la barto in la fahmo in lagu dhaqmo iyo in la faafiyo waayo manfac ayaa ku jira waxa manfaca ku jira waa la faafiyaa hadda waxaa la raadinayaa zamankan waqtigan akhrinaya hadda bisha abril koodeeda oo tafsiirka suuratu yuusuf aan bilaabay iyo sanadka 2020 waxa dadka hadda ay ku mashquulsan yihiin oo cabsi iyo walwal abuuray waa cudur la yiraahdo coronavirus ajaladan waxaa laga yaabaa inay dhageystaan dad markaan dhimana kadib ilaahay uu qadaro inay dhageystaan ay ku aflaxaan ay ku liibaanaan intiina ahlu khayrka ay dhageysanayso markaa faafisaan kumanaan qof inuu gaaro hadduu ilaahay yiraahdo waayo waxaan naga rabnaa ma arka tafsiirkii caadiga ah maaha waxaa la akhrinayo waxaan akhrinaynaa tafsiirka aayadahan dulmaraynaa laakiin axkaamta iyo asraarta aayad kasta ku jirtaan akhrinaynaa هذا القرآن كان أنكوسه وحيون الله سبحانه وتعالى وحوليه وشكذا أن أنكو حشيينه وإن كنت هذا رسولك على الله وإن كنت أذيقوا محوها رسولك من قبله قرآن كهرتيسا نبيك من الغافلين روح آن وحك أوغين قصوي كان أما قصدا وليس قصة نبي يوسف iyo ambiyada iyo macluumaadka ilaahay uu siinayo nabi maxamed uu sheegayo rasuulka wax uu ka ogaa ma laha gaafil waxa qofka aan wax ogeyn quraanka hortiisa waxaad ahayd qof aan cilmi lahayn rasuulku wuxuu ahaa ummi okay fawaa'id laga qaadanaa aayadan marka kow
waxaa laga qaadanayaa nebiga in loo sheekeeyey. halkan waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay qof inuu qof kale sheeko uu u aqriyo. sheekooyinkaasi marka dhacdo waayo. halkan sheeko laga hadlayo ma aha sheeko la sameeyey, wax dhacay waa. laba, waxaa laga faa'iidaysanayaa aayaddan sheekadan inay tahay sheeko culus. axsan alqasas, sheekadan waxay xambaarsan tahay macluumaad iyo xikmado iyo asraar oo qofka noloshiisa oo dhan uu ku hagi karo. marka waa sheeko caadi ma aha. sheekooyinka waxaa la yidhi marka la akhrinayo iyo taariikhda 3 ayaa ugu muhiimsan. waxaa ugu muhiimsan dhacdooyinka, duruusi laga qaato. dhacdooyin aan arki doonaa oo yuusuf uu ku dhici doono, dadna ay sabab u yihiin. marka dhacdooyinka waxaa laga fiiriyaa maxay u dhaceen, yaa dhacdadaasi mas-uul ka ahaa, qaabkay u dhaceen dhacdooyinkaasi. marka waa dhacdooyinka wax ku wareegsan ayaa la daraaseeyaa, analysis iyo taxliil cilmiga lagu sameeyaa. tusaale ahaan qoladan yuusuf walaalihiisoo dadka ugu dhowaa oo la dhashay waxay go-aan ku gaarayaan inay dilaan. in la dilo waa dhacdo. su-aal markaa ka dhalanayso, maxay u rabaan inay u dilaan walaalkooda la dhashay? 2, ilmo yar oo aan qaangaarin oo waxba aan galabsan oo innocent oo maskiina inay u dilaan maxay u rabaan? qaabka ay isla garteen inay u dilaan, qaabkaas maxay ugu doorteen? maxay ka helayaan dilka yuusuf dhacdadaas inay sameeyaan? marka wixii su-aal oo dhacdada ku saabsan oo dhan in taxliil lagu sameeyo waa kow. waxaan kaloo suuradda aan daraaseynaynaa zamanka dhacdadaas ee dhacday ayaa waxaan ku xiraynaa zamanka hadda aan ku noolnahay. dad noocan oo kalea ma jiraan oo ku fikiraya walaalka ama kan dadka ugu dhow inuu dilo, inuu marin habaabiyo, inuu qorsho dhagar ah uu u sameeyo. marka labada zamanaa la isku xiraya. 3, ashqaastaa la fiiriyaa. dhaca markay dhacayso ashqaasta ay wax ku dhacayaan. shakhsiyadda nebi yuusuf aan daraaseynaynaa. yuu ahaa, gurigee uu ka yimid, walaalaha la dhashay yay ahaayeen, maxaa ka dhexeeya, xiriirka ka dhexeeya aabbaha iyo yuusuf muxuu ahaa, shakhsiga qisada ku socota iyo xiriir ka dhexeeya iyo walaalaha muxuu ahaa, maxay tabanayaan, xaqaa'iq intee la eg gaarsiisan tahay waxay tabanayaan. intaasoo dhan la wada fiirinaya. marka axsan alqasas waxay ku noqotay duruus iyo cibar fara badan. lidaalika qur-aanka lama rabo in la akhriyo oo keliya. qur-aanka akhrintiisa waa cibaado, ajraa laga helayaa, laakiin barashadiisu waa cibaado. lidaalika waxaa la yidhi 2 ayaa dadka ugu khayr badan. khayrukum man tacallama alqur'aan wa callama. dadka 2 ugu khayr badan, xadiiskii nabiga caleyhi salatu wasalaam. kan dadka qur'aanka barayo waa macalinka iyo ardayga baranayo. haddaan booska macalinka hadda aan taagnahay oo qur'aanka micnihiisa aan idiin barayo iyo idinka oo qur'aanka baranayo, intaas ugu khayr badan. culummada waxay kala soo dhex baxeen xadiiskaasi. waxaa kaloo dadka ugu khayr badan mid 3aad ay soo geliyeen. waxay dhaheen kan faafinayo ama macalinka ha ahaado ama ardayga ha ahaado, dadka sababto khayr qofka markuu faafinayo khayrkaasi cid kasto oo dhegihiisa ay ku dhacayso, qofkaasi markii dhegihiisa ay ku dhacdo ugu horeyso ajir waxaa loo qorayaa ruuxii sabab u ahaa dhegihiisa inay ku dhacaan. marka maxaa laga faa'iidaysanayaa duruus kale? qisadan inay tahay qisada ugu fiican oo ilaahay subxaanahu watacaala, qisooyinka dhan wada fiican weeyaan, iyagoo qiso wada fiican wada ah, tan laakiin qiso gooni ah. 3, waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa waxyi inay tahay. hadday tahay dadkan waa soo hormarin oo ah sheeko bini aadam uu qoray ma ahan, waa waxyi qur'aani ah. oo micnaheeda waxaa loola jeedaa waxyi qur'aani ah ku dhaqankiisa waa cibaado, barashadiisa waa cibaado, maaragtay waa xifd, waa protection ilaahay uu kugu ilaalinayo. hadda intaan dhagaysanayno, intaan akhrinayno aayaadkaasi intay carabkani kasoo baxayaan, malaa'igana la joogto. malaa'igtaasi maxay dhahdaa allahuma qfir lahum allahuma arxamhum, way ku celcelisaa. intaan wada joogno
labadaasi ku celcelisaa xadiis ayaa dhahay allahuma qfir lahum allahuma arxamhum allahuma qfir lahum allahuma arxamhum waa maxa micnaheed ilaahu haddii dembi ay galeen uu jiro ilaahu ka dhaaf ilaah markiiba uu naga tirtiraya intaas kuma joojinaya allahuma arxamhum ilaahu u naxariiso wax dhibaya ka ilaali malaa'igtan ma ducinaysa coronavirus ilaahu ka ilaali shartiisa ilaahu ka ilaali yaa loo duceynaya waxaa loo duceynaya oo keliya cidda dhegaysanayso khayrkan cidda faafinayso khayrkan marka waa waxyi waa qur'aanka marka hadayt waa kasoo hadalnay xaraf kasto oo la akhrinayo waa 10 xasanaad markay ugu yartahay iyo ziyaado maxaa kaloo halkan laga faa'iideysanaya halkan waxaa laga faa'iideysanayaa in ilama horaan tahay in macalin aad yeelato nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa macalin u ahaa culimada waxay dhahaan jibriil ayaa macalinkiisa ahaa waa run ilaaha u soo diray laakiin ilaah ayaa macalin u ahaa nabiga yaa wax u sheegaya nabiga ilaah wax u sheegaya marka la dhahayo qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi lfalaq qul acuudu birabbi nnaas yaa dhaha yaa amarkaas bixina ilaah subxana macalinkaadi markuu amarku siinayo waxaa samee waxaasaa samaynin yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min adan ka fogaada malaxumad in la malaxumayo insaanka oo bini aadamka walaalka ah ka fogow marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu rabaa ama uu nala rabaa khayrkaasna waxaa helaya dadka ahlulqur'aan ah ahlulqur'aan waa khaasatu ilaah naga dhigo marka halkaa marka waxaa laga faa'iideysanayaa marka ilaahay uu leeyahay meesha ugu dambayso wa in kunta min qablihi la min alghaafiliin qur'aankan ka hor qisadan weligaa ma maqal ma aadan baran aqoon uma lahayn asraarteeda ma aadan ogaanin laakiin anagaa ku barnay anagaa macalin ku ah marka qofka macalin waxaa leeyahay mucallimu lkhayr qofka inuu macalin oo khayrka bara inuu lahaado waayo marka lidaalika adduunka waxaa loo kala qaybaa imaa waxaa leeyahay mucallimu lkhayr mid khayrka ku bara ama mucallimu shaytaan ama mid shaytaan ah mucallimu shar ayaan ula jeedaa shar mid ku bara wax ku dhibayo adduun iyo aakhiro ama qof ku barayo wax kuu faa'iideynaya adduun iyo aakhiro aayaddan saddexaad marka waxaa laga faa'iideysanayaa nabi maxamed ilaah subxaana wa tacaala inuu wax baray oo macalin ilaah uu u ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana lagu mana sheeganayo ilaahay uu dhahayo adoon wax ogeyn ayaa waxaan kaa dhignay caalim marka rasuulka marka door kalou qaatay marka mucallimu linsaaniya waa isaga waa marka insaanka oo dhan ayuu macalin u noqday marka anigu macalin noo yahay annaga culummada ah oo diinta baratay oo welina baran doona ilin diinta ma dhammaatee waxaa macalin noo ah rasuulka calayhi salaam alculamaa warathatu lambiyaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam culummada waxay dhaxleen ambiyada marka nebi maxamed waxaan ka dhaxalnay waa waxa caawa aan akhrinayno oo culummada inoo akhriyeen tafaasiirtaas intaasoo jeer culummada inoo akhriyeen ayaan waxaan ku sameynaynaa muraajaca ah axkaamta iyo asraarta iyo cibar iyo duruus waxaa ku jiroo dhan ayaan qufaynaa ilaahana weydiisanaynaa inuu na waafajiyo marka saddexdaas aayadood intaasaa laga faa'iidaysanaya macalin noqo haddaad diinta si fiican u taqaano oo dadka diinta bar haddaadan si fiican u aqoonina macalin yeelo arday noqo saad u barato waxyaalaha asraarta iyo axkaamta iyo cibar iyo wax walboo noloshaada oo dhan hagayo meesha aad ka helaysid oo ah qur'aanka kariimka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aquulu qawli hada aayad saddexdan ku joojinaynaa 10 koowaad aquulu qawli hada wa astaghfiru lii wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahiim waxaan ku ducaysanaynaa ducadan aan kusoo qatimaynaa bismi illah walxamdulillah wathanaa lillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa qur'aankan ilaahu na fahamsiin macnihiisa ilaahu qur'aankan kuwii fahma ee ku camal fala ee xifdiya ee faafiya ilaahu naga yeel annaga iyo caruurteenna iyo awlaadeenna ilaahu waxaa naga yeeshaa sida xadiiska nebiga ahaa dadka ahlu qur'aanka inay khaas u yihiin ilaah allahuma ijcalnaa khaasataka wa ahlaka yaa rab alcaalamiin ilaahu dad khaas ku ah adiga oo ahlul qur'aan ah ilaahu naga yeel oo qur'aanka kariimka ah barta fahma ku dhaqma oo faafiya xifdiya oo macaanihiisa xuruuftiisa xuduudiisa oo dhan xifdiya oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala khaadim
alkitaab aan noqono kuwa u khidma ilaahu naga yeel. waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaahu sharta socoto, cudurka la sheegayo coronavirus iyo cudurada lamid ah iyo shartiisa, ilaahu annagoo dhan abaalmari. muslimiinta iyo gaalada way rafaadsan yihiin adduunka, ilaahu hadday cuquubo tahay naga koryeel. ilaahu haddaan dembi galna laga jaasinayo, ilaahu noo naxariiso. ilaahu camalkeenna oo iyo sufahada camalka ay sameyn, ilaahu ha noo qaban. ilaahu fadligaada noogu naxariiso. ilaahu cadaaladaada, ilaahu subxaanahu wa tacaala ha noogu xukumin ficiladeenna iyo waxa naga soo baxaya ama caalamka ay sameeyeen aan ku fiirsanna. ilaahu na cafi, ilaahu na cafi, saqiira wa kabiira waxaan sameyn ilaahu naga cafi. ilaahu kitaabkan suuraddan aan rabnaa inaan fahamno, aan dhammayno mucjizaadka, axkaamta ku qarsoon, asraarta ku qarsoon, xikam ku qarsoon, cibar ku qarsoon, duruus ku qarsoon. ilaahu nawaafaji natusi. aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.